cunugaaga bar awoodda barakada iyo ahmiyada ducada ay leedahay tusaale ahaan cuntada waa barakaysan tahay ilaaha barakeeyay laakiin goormay baraka noqonay bismillaah markaa dhahdid nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray yaa qulaam sami illaah kul yamiinik wa kul bimaa yaliik marba haddii bismillaah adiga aad dhahdid way barakaysan tahay cuntadaasi wax walba oo dhulkan dushiisa ka soo bax oo dhan oo wax barakaysan waay cuntadan dhulka lagu tuuraayo ha ka yeelin in dhulka ay taalo way barakaysan tahay ka qaad meel aan lugta gaarin dhig adigoo ilaalinaya barakada cuntadaasi ku jirta ahmiyada ducadana bar ilmahaaga waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu leeyahay adcuunii astajib lakum ibarya san idinkaga ajiibo ilaahay gacmo kor loo taagtay oo baran ma soo celiyo waa isagaaba ka xishoonaya